Guurtida joogtada ee Golaha Guurtida Somaliland ayaa kulan xog waraysi la yeelatay duqa Caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko oo hortagay guddidaasi waxaana guddidaasi Golaha Guurtida ay su'aalo ka weydiiyeen Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko la xiriira arrimaha horumarinta Caasimadda Hargeysa waxyaabaha hortaagan waxaana duqa Caasimadda Hargeysa uu ka jawaabay dhamaanba su'aalihii ay ka weydiiyeen guddida joogtada ah Golaha Guurtida Somaliland kulankaasi bantada meesha lagu yeelay ee muuqatayna koow waxa ka ah xiriiriga ku jira magaalada ee xagga wadooyinka marka la eego gaadiidkii oo soo batay wadooyinkii oo xiriiriya su'aalaha lagu weydiiyeyna taasay u badan yihiin tan maarayn la helo u baahanayna waa taa hadda waxaan la qorto baxay idiga meel yaala wadada kaliyeeda ee hadii gaar ku jiro magaalada bedno noqonaysa madaxweynuhu soo saaray hantida ummadda waa dhulka waa guryaha sidee baa adiga dawladii wasaaradii loo magacaabay sidee baa u shaqaysaa ma kula tahay haddaba sida wakaalada biyaha inaad biil ka dhigtaan ardayda marka ma idin qorshaysan tahay biriishyo kale Hargeysa way u baahan tahay inta biriishkii musqarniga la isticmaalayay wax qaba biriishkaasi inaanu repair u baahnayn inuu meesha ka baxay u dhowdahay ka qorshaysan beerahan hareeraha la bixinayo kulli magaalada waa gaadhaysaa in wadooyinkooda laga dhigo wadooyin waaweyn intaan la bixino guriga laga dhisin oo baarkinadii iyo wax walba ay u dhan yihiin duqa Caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Solteko ayaa isaguna ka jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen guddida joogtada ah Golaha Guurtida Somaliland basaska waxaanu ka samaynay istaano barnaamijkan ku wajinay dibadda insha Allah waxaanu qorsheynaynaa qorshaha iyagii koowaad ogta waa hax galay oo socon waayay kalabaad in waxaan ugu talagalay in magaalada laga saaro markii hore magaaladan meel center uga deedeen kalabaad in aan magaalada ka saarno hadba intii shaqeynaysaa wasaaradda hawlaha guud iyo muxuu ahaa iyo idinku soo wada shaqeysaa xeer number 17 baa jira xeerkaasi baan ku wada shaqeynaa wax dhibaato taaganna ma jiraan oo annaga iyo wasaaraddu waan wada shaqeynaa haddii ay jirto waan mamnuucay intii aanu joognay golaha iyagan deegaanku in albaab la furto laakiin se inta kale aad sheegtay waan kula qaadanayaa shada dhisan ma aragtay aad bay u kooban tahay haddii la dhisana waxaa la sameeyey halkii warshadaha macalimka waddan ka samaynay dhulkaasi dadkii waxay doonayaan inay inta baloodhaystaan ka dhigtaan aqalo bridgeada imika say u kala raacdaba waxaa iska lahayd wasaaradda hawlaha guud markii wadooyinku ku jireen ma huba imika xeer ahaan inay raacday wasaaradda wadooyinka gaadiidka wadooyinka inay raacday wasaaradda hawlaha guud baa qandaraas bixisay intii annaga si kaayadeysay mar labaad waxa yimid dad ka cadhaysan birkii la bixiyey maanta dhaweyn cidda suuqa iyadoo meeshii la qoday oo la hagaajinayo oo la baneeyey ka dhigtay inuu sidaa yahay hadda shaqadii baa socotaa oo waxa la baneeyey halkii kaabadu ahayd baa la baneeyey ayaa media ka haystay nin qandaraas waayay teednaga suuli waxa biriishkii caynka waana laga shaqeynaya gacanta lagu hayaa birkiiba waa la bixiyey annaga shaqadeedu waxa weeyii wadooyinka magaalada gudaheega wixii aan ka qaban karanana waxay nagu siiyaan inay qayb naga caawiyaan Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa.